بان تمامي هرقسان كانت توسي وسوسان بمتاهي نيروبي تبتيدا جبتاية تسميسا جيجيان طلابي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة وإذن سلامي أهلا وسهلا سو دوادا maanta waxaa idin share gareynayaa saliida kala ceen oo timaha maaska aan uga dhigayno. saliida waxa way timaha nafaqo ku siinaya oo fitamiinaad leh, timaha ku bixinayaan oo ku qurxinayaan oo ku dheereynayaan. iyo waxaan kala sameysanaynaa saliida xawaajibka iyo ama sunniyaha ku badinayaan oo ku madoobeynayaan oo ku qurxinayaan aan sameysanaynaa. iyo saliida kale oo ugu talagalnay cijiyaha een ku dhalaalinayaan ku qurxinayaan oo ku dheereynayaan oo maasha Allah soo dhawaada asxaabteeda ka faa'iideysi wacan. marka hore waxaan ku bilaabanaynaa saliida timaha maaskada aan uga dhigayno. meeshan waxa ii yaalo 4 saliid oo kala ceen saliida zaytuunka, saliida qumbaha, saliida dacaarta aloe vera iyo saliida kharwac waxa waaye castor oil waaye. af Soomaalian wax lagu dhahaa ma aqaan castor oil, laakiin عربيga waxaa lagu dhahaa زيت خروع، Englishkana waxaa lagu dhahaa castor oil. marka asxaabteeda waxaa sameynaysaa waxay ku xiran tahay timahaaga sidee yihiin ay ku xiran tahay. haddii timahaaga ay gaagaaban yihiin, haddii tintaada dhexaad ay tahay, haddii tintaada ay dheer tahay, waa u qiyaasanaysaa saliida. ani laakiin waxaan sameynayaa laba qaado aan sameynaya oo saliid kasta waxaa la rabaa inaad isla ekaysiisid. haddii hal qaado markin oo saliidan ka isticmaalaysid kulli waxaa la rabaa inaa hal qaado isku dartid inaa isla ekaysid la rabaa. laba hadda isticmaalaysid sidoo kale waxaa la rabaa laba qaado waxaa la rabaa saliidaha inay isla ekaadaan. ani marka hadda waxaan ku darsaday laba qaado saliid kasto. marka waxaan sameynaynaa waa isku qasaynaa saliida ka bacdina waxaan ku sameynaynaa xamaam maa ayaan ku sameynaynaa. digsi yar aan biyo ku shubaynaa, bacdeen dabkaan saaraynaa. ka bacdi dabka marka biyaha ay soo kululaadaan saliida baaquliga aan ku dhex ridaynaa. wax yar ka bacdina waa ka dajinaynaa. waxaa la rabaa in saliida markana ay si fiican isku dhex gasho. kana digsiga biyo yaraan ku shubay, dabkaan saaray. biyaha markay kululaadaan bacdeen baaquliga ku ridaysa saliida kuugu jirto. waxaa la rabaa saliida inay si fiican isku dhex gasho. wax yar marka ku saarnaado waa ka dajinaysaa. marka horena dabkaa daminee waatana saliidii waxaa la rabaa haddana inaa markina kastoo aad dhaaftid saliid iyadoo kuleel madaxa ma lagu shuban karo. dabcan waxaa la rabaa saliida markina inay noqoto saliid daafi yacni oo qandac markay qandac noqotaa isticmaalaysaa aad timaha ku shubaysaa. timaha ku shubaysaa madaxa lafta kulli waa ka buuxinaysaa. si fiican ugu shubaysaa. ka bacdina waa ku masaajeynaysaa. si fiican ugu masaajeynaysaa. waxaa iska ilaalinaya inta masaajeynaysa in markina cijida ay ka gaarto. waxaa ku masaajeynaysaa faraha ku masaajeynaysaa si fiican. bacdeen waxaa isticmaalaysaa oo ku daboolaysaa oo ku xiraysaa balastiig marka la qubaysanayo biyaha oo looga ilaaliyo tinta soo qabanaysaa gashanaysaa insha Allah. ama waxaa isticmaali kartaa bac caadi ku xiraysaa madaxa. bacdeen waxaa ku haynaysaa saacada ku haynaysaa. waxaa ku haynaysaa 2 saac 3 saac ilaa 4 saac ama ku haynaysaa yani sida adiga waqti u haysid. waxaa fiican ilaa 4 saac inaad ku haysid oo saliida ay si fiican madaxa ay u gasho. maasha Allah saliid walba waxay leedahay fitamiinaadkeeda iyo nafaqadeeda ay leedahay. timahane aad kaaga saacidayaan oo ku qurxinayaan oo ku dheereynayaan insha Allah. haddana waxaan sameysanaynaa saliidaha sunniyaha iyo baalasha indhaha ku qurxinayaan oo ku badinayaan. waxaan ka sameysanaynaa 2 saliid iyo vitamin E capsule ka sameysanaynaa. saddexdaas isku daraynaa insha Allah. saliida waxa waaye saliida maxaa la dhahay oo kharwac, زيت kharwac iyo زيت kharwacna waxa waaye saliida oo castor oil waaye iyo saliida qumbaha aan isku daraynaa iyo vitamin E capsule. saddexdaas isku daraynaa aan ka sameysanaynaa saliida oo xawaajibka ama sunniyaha iyo baalasha indhaha aan ka sameysanaynaa.
saddexdaasaan isku dareynaa insha allah. waxaan sameyneynaa waa isku qasaysaa, caag yaraa ku shubanaysaa ama dhalaa ku shubanaysaa haddii ay ku taalo. bacdeen waxaa isticmaalaysaa habeenkii markaa seexanaysid isticmaalaysaa, yacni adoo soo jeedid ama maalintii oo kale ma isticmaalaysid, habeenkii intaad soo jeedid ma isticmaalaysid, markaa seexanaysid oo sariirta aad koraysid isticmaalaysaa. wax yaroo khafiifaan isticmaalaysaa, waxaa ku marsanaysaa suufka dhegta isticmaalaysaa ama waxaa isticmaalaysaa geed waxaa jira qaas buraash qaas jira oo meelaha lagu gado, maxalaadka lagu gado, gelinaysaa saliidda. bacdeen waxaa isticmaalaysaa, waxaa ku shanlaynaysaa sunniyaha ama xawaajibka ku shanlaynaysaa. waxaa kaloo baalashana waa u isticmaalaysaa, iyadana waa ku shanlaynaysaa, laakiin waxaa ka ilaalinaysaa isha. marka waxaa la rabaa isla markaas inaad seexatid calashaan si markinoo isha ay kaaga gaarin. subaxdana markaad soo kacdid waa iska dhaqaysaa insha allah. saliidahanitoodna yacni si fiican oo kaaga saacidayaa xawaajibka ama sunniyaha inuu kugu bato, yacni waa kuu badinayaa, waa kuu madoobeynayaa. ramuushka sidoo kale ama baalasha oo indhaha markaa isticmaashid iyadana maasha allah way kuu fiicnaanaysaa, kuu dheeraanaysaa, kuu qurux badnaanaysaa, kaal iska aragay noqonaysaa. marka toos u isticmaal, kumadiinkaaga kuu saarnaada saliidaanitood aad iyo aad ay kuu anfacaysaa. laino maxaa la dhahayay xawaajibka ama sunniyaha daa'iman waxaa la mariyaa qalinaa la mariyaa. qalinkana wuxuu sababayaa qalinaa lagu rasamaa ama la mariyaa. qalinka wuxuu ku sababayaa in markino tinta ay kaaga go'do, waxaa kaloo tinta inay kaa qafiifta ay kaa go'do ay sababaayo. waxaa kaloo ku sababaayo qaleelka markino xawaajibka ama sunniyaha ay qalalaan, waxay sababaan in tintii ay ay kaaga go'do. calashaan saas waa wax saliidaha loo marinaayo. haddana waxaan gelaynaa qaybta kale oo cijiyaha. cijiyahana waxaan isku daraynaa vaseline iyo waxaan isku daraynaa iyo saliidda saytuunka, iyo waxaan kaloo ku daraynaa vitamin E capsule. waxaan ku shubanaynaa cilbadan yarta aan ku shubaynaa. marka hore waxaan ku shubanaynaa hal qaado oo vaseline hal qaado yar oo buuxdo oo vaseline aan ku shubanaynaa marka hore. iyo waxaan kaloo ku shubanaynaa laba qaado oo zayt zaytuun ama saliidda saytuunka. qaadadana qaadada yarta waaye, laba qaadaan ku shubanaynaa. waxaan kaloo ku shubanaynaa vitamin E-ga, vitamin E capsule. haddii oo kuu oolin caadi waaye, labadooda kifaaya waaye, waa isticmaali kartaa, way kuu bixinayaan waana kuu qurxinayaan vaseline-ka iyo saliidda saytuunka. hadda marka waxaan sameyneynaa waa si fiican u walaaqaynaa, si fiican isku dhexgelinaynaa vaseline-ka iyo saliidda, si fiican isku walaaqaynaa. kabacdina waxaan sameyneynaa, waxaa la isticmaalayaa habeenkii markaa seexanaysid. iyadana habeenkii markaa seexanaysid isticmaalaysaa, waxaa ka marinaysaa cijida meesha ay kasoo baxaysaa ka marinaysaa, waa ku masaajeynay ilaa cijida oo dhan aa marinay. maasha allah habeenkii ku seexanaysaa, kabacdina subaxda markaa soo kacdida iska dhaqaysaa. يعني wuxuu noqonaa sida cream camal oo noqonaa maasha allah markii la isku qaso vaseline-ka iyo saliidda markii la isku qaso iyo vitamin E-ga wuxuu noqonaa sida cream camal. waxaa u isticmaalaysaa habeen kasta marsanaysaa, subaxda markaa soo kacdina waa iska dhaqaysaa. cijiyahaagana haddii aad toos u isticmaashid maasha allah aad iyo aad u qurux badnaanayaan, waa ku adkaanayaan cijiyaha, yacni sahal makaaga jabayaan, way dhalaalayaan, kaal iska arag ku noqonayaan insha allah. asxaabtayda qaaliga joogto isticmaala insha allah.
waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen asxaabteyda qaaliga haddii aad ka hesheen like asxaabteydana usii share gareeya haddii aan ugu cusub tahay soo dhawow subscribe ka taabo beelkana furo si aan iskula soconno waxaa inoo balan videoga dambe insha Allah waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh